السلام عليكم ولله Soomaaliyeed ku soo dhawaada kanalka Tansheeg maanta waxaan soo bandhigayaa shirkadii guusha Ramesh Babu Ramesh waa nin reer India oo milyaneer ah kaasi oo leh shirkad kireysa baabuurta ay baabuurtiisu gaariyaan 300 gaari hadii aanad fikir iyo aaminsanaan fiican ka haysan guusha waxa laga yaabaa inaad u maleyso in Ramesh uu ahaa qof nasiib leh ama qof ay ku caawiyeen qoyskiisu inuu asaaso ganacsiga balse xaqiiq ahaan Ramesh wuxuu tusaale sax ah ku tusaya sida dhiranaanta iyo go'aanku ay uga badiyo wax kasta oo kale Ramesh wuxuu ku shaqeyn jiray meel raysla ama timajara ah kaasi oo adeerkii lahaa wuxuu maalinta dhan ku shaqeyn jiray 5 rubi oo waqtiga ahayd lacag aad u yar Ramesh wuxuu tagi jiray rayslaha aroortii waxbarashada oo college ka dhigan jiray wuxuu tagi jiray casarkii inta kadib wuxuu noqon jiray rayslaha waxaan ka shaqeyn jiray ilaa 1 habeenimo Ramesh wuxuu saddexda waqti ee wax la cuno wax cuni jiray hal waqti oo kaliya si uu noolaado sababtoo ah muu heli jirin lacag ku filan oo ku iibsado cunto kale maalmaha ka mid ayuu Ramesh isku tarka lacagta u keedsaneed ee lacag uu soo amahdaba qaaday oo ku iibsaday gaari Ramesh wuxuu bilaabay inuu kireeyo baabuurtii si uu lacag uga sameeyo oo lacag uga soo gasho waxa kadib wuxuu yeeshay 6 gaari oo uu kireeyo waxaanu wax badan xiriir la yeeshay xagga ganacsiga kireenta 2004 wuxuu bilaabay inuu iibsado gaari nooca lagu raaxaysto ah oo ku kireeyo dadka waqtiga dadku ma kireysan jirin gaarida lagu raaxaysto qof kastaan wuxuu u sheegay inuu qalad weyn sameeyay Ramesh wuxuu cadeeyay dadkii inuu isagu saxsanaa ganacsigiisana wuxuu sii koray markuu waqtigu ahaa 2011 wuxuu bilaabay inuu ku soo daro ganacsigiisa oo ka iibsado gaarida loo yaqaan Rolls Royce mar labaad dadkii waxay u sheegeen inuu qalad aad u weyn sameeyo Ramesh mar labaad uu saxsanaa wuxuu noqday milyaneer gaaridiisuna waxay gaadhin ka badan 300 baabuur noloshiisa gabi ahaanba way isbedeshay casharada laga baranayo shirkadda Ramesh noloshu waa adagtahay sida awgeed maxaa kula gudban hadda ma u maleynaysaa inaanad ganacsi bilaabi karin sababta wax lacag hameysatid ama sababta wax waqti hameysatid Ramesh wuxuu xibranaya maalinta oo dhan maalintu wuxuu helayaa lacag 5 rubi ah waxaad haysataa wax ka badan intuu haystay Ramesh haddii aad u maleynayso noloshaada adagtahay waxaad ogaataa dadka noloshooda ka sii xumid ay sameeyeen oo gaareen guul badana waxa jiri doona qof ku niyad jabiyo hoos ku dhiga kahor inta aanu qaadin labadii talaabo ugu muhiimsanaa meeladiisa dadku waxay u sheegeen inuu ku socdo jiho qaldan balse muu dhageysan dadka taan waa wax saxda ah ee dadka guusha gaara sameeyaan waxa raacaan riyooyinkooda waxay gaar is leeyihiin xataa haday dad badan isku dayaan inay ka joojiyaan dadka qaar waxay sameeyaan cudurdaaro dadka kale hore ayay ka qabtaan haddii Ramesh aan weligii guuleysan lahayn oo uu sababeyn lahaa guuldaradiisa cudurdaaradaasi waxay noqon lahaayeen qaar macquul ah dad badan hadda waxaas oo dhan kadib muxuu sameyn karaa qof ku nool xaaladda sidan u adagi si uu u horumariyo noloshiisa Ramesh wuxuu cadeeyay in go'aan qaadashada iyo shaqada adagi ay u bedeli karaan nolol kasta dhinaca fiican maanta mowduucan intaas ayuu ku saabsan yahay falan hadaad sheekadan ka heshay kanalka subscribe iyo like iyo share saar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala